waxaa sharaf weyn u ah wasaaradda maaliyadda xarunteeda gobolka Mudug inay nagu soo booqdeen guddiga dhaqaalaha iyo xisaabaadka ee golaha wakiilada dowladda Puntland. waxaan ka dhul bilownay xafiiska wasaaradda maaliyadda ee gobolka Mudug, halkaas oo aan warbixin aan ka siinay xaaladda dhaqaale iyo xaaladda shaqo ee wasaaradda ee gobolka. kadibna waxaan kormeernay goobaha dakhliga ee gobolka ku yaala oo aeroboorku ka mid yahay oo kastamka koonfureed uu ka mid yahay. waxaan rajaynaynaa inaan goobaha kaleeto oo gobolkan aanu booqan doono. lacagtaas wadarta guud ee garoonka soo gashay 269 kun bay noqotay iyo $100. baahida garoonka taalana waa saa idin sheegay waa 455. dukumentigan idin dhiibnay bayna ku qoran tahay. qarashka markii la kala jaro lacagta aan hayno 269 ka ah iyo 455 garoonka uu baahan yahay waxa noqotay lacag 186 kun. lacagta 186 kun waxa laga sugay oo ballan qaaday dawladda Puntland. fiiska koowaadna dawladdu madaxweynaha ka horeeyay dawladda ka horeysay waxay ballan qaadeen lacag $30,000 marka bilowgii ahaa madaxweynuhu maruu soo booqday garoonka lacagta 15 kun baa ka baxday. 15 kun way dhimanaydba. dawladduna intaas garoonkaas ay shaqadu socotay waxa ka soo gaadhay lacag $15,000 oo dawladda hore ay bixisay. waxaan halkaan ku nimid wafti ballaa ka socday golaha wakiilada guddiga dhaqaalaha iyo xisaabaadka golaha wakiilada Puntland oo kormeer ku mareeyay gobolka Mudug. kormeerkeedii waxaanu bilownay saakito waxaan soo nagu heliyo xisaabiyaha gobolka Mudug ee wasaaradda maaliyadda iyo saraakiil kale oo ka tirsan dawladda. waxaan tagnay ugu horeyn xafiiska xisaabiyaha wasaaradda maaliyadda gobolka Mudug, halkaas aan kula kulannay xisaabiyaha wasaaradda maaliyadda Ismaaciil Cabdinuur. si fiican baan runtii xog wareysi badan baan wada yeelanay oo nooga warramay xaaladda dhaqaale ee gobolka, meesha wax marayaan sida dakhliga kastamada, canshuuraha biriga iyo dhammaan hanaanka maaliyadeed ee gobolka Mudug. xisaabiyaha ka bacdina waxaan wada galnay kormeer. waxaan tagnay kastamka koonfureed magaalada Gaalkacyo, halkaasoo saraakiishii canshuuraha biriga iyo kastamka aanu kaga dhageysanay warbixin. ka bacdina waftiga waxaanu dhaqaaqnay dhinaca aeroboorka. waxaan booqannay garoonka diyaaradaha magaalada Gaalkacyo. waxaan kula kulannay maareeyaha garoonka, madaxa kastamka iyo wafti wasiiraha oo wasiirka duulista hawada iyo wasiir dowlaha wasaaradda duulista hawada ay ka mid ahaayeen oo ayaga laftigooda halkaas shaqo joogay. iswaraysi iyo xog baan kala qaadanay annagoo xaaladda guud ee aeroboorka wareysanay maareeyaha iyo habka shaqo ee garoonka. runtii waxyaalo fara badan oo maaragtay aan markii hore aan aad loo ogeyn baan kurgelidii iyo xogtii aan aruurin nooga soo baxay, taasoo insha Allah aan la wadaagi doono markii hawsheeda shaqo aanu ka hayno gobolka Mudug aan dhamaysano golaha wakiilada.